بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيارته وعن جعلها يوم والباء جوكتين يقر والباء يحل والباء يكوتاين وعنا وناكسنا يان كلهيان وانيقوا صاحبكين مصطفى محمد علي ألعبنا كراسو هالله هل كان يدو بي ميديا قضبضا سياسة دلكين هوينا كوسو باهيو إسلا مركاسنا aan diiradda saarno inta badan waxyaabaha dalkeena hooyo ee ka jira kuwoodii aan isdheenahay way xiise gelinayaan bulshadeena Soomaaliyeed balse aan ku yara xasuusiyo haddii ay tahay markii kugu horreysay channelkani aad dul imaadid aan calaamadda guduun hortaada ee subscribe-ka aan taabanin gambaleelkana aan furin fadlan calaamadda guduun subscribe-ka taabo gambaleelka furo si aan maxamed joogto u noqono laagtina dhiirigelinayo inoo tahay taliya aragti waxaa haysana qaybta hoose commentiga nagula soo wadaag asxaabtaadana u sii sheergaray ee la sii wadaag mahadsanid haddii aan intaasi ku sii gudbo qodobka aan rabo in aan dul istaagana maxay tahay wixii labadii sano ee laga diidanay maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddo kordhinta ahaa waxay u muuqataa in si dadban ee iminka u socoto holihiisana oo uu sii wato haddaba waxaa isweydiin mudan labadii sano ee maxamed cabdulaahi farmaajo muddo kordhinta ahayd tan iyo markii u dhammaaday muddo xileedkiisii oo ka ekayd 8 February wixii ka dambeeyey isjiidjiidkii jahwareerkii lagu jiray ee muddada sanadka ku dhow ah waxay u muuqataa in iminka si dadban ay ugu socoto waxaana la xasuustaa in ay ka dhalatay muddo kordhintii markii lagu ku samaystay golaha baarlamaanka sharci ahaan waqtigu ka dhammaaday in ay ka dhalatay dagaal u dhaxeeyo ciidamada dhexdooda oo fikir ahaan kala taabacsan siyaasiyiinta markaasi musharaxiinta ah iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac dad shacab soo gaaray iyo labada dhinac dagaalamaysay balse 1 Meey sanadka 2021 ayay ahayd markuu maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday oo hortaga baarlamaankii golaha shacabka oo asagana kasii hor dhamaaday waqtigiisa kana hor cadeeyay in uu ka tanaasulay muddo xileedkii ee 2 sano ahay kordhinta loo sameeyay awoodahana ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha si doorashada iyo amniga guud dalka loo galo rajadaasi iyo fafaalahaasi iyo heshiiskaasi waxay u muuqatay mid sii soconayso waxaana taasi ay beddelkeeda dhacday in iminka waxyaabihii si oo dhan ay ka soo gudubtay markaanu eegno tillaabooyinkaasi wixii ka dambeeyey waxaa dhashay isqabqabsi siyaasadeed oo isla markaasina u muuqda mid oo mar kalena awoodiisii oo ku soo laabanayo in uu sii maamusho maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sameeyey isbeddello siyaasadeed oo tii hore ka duwan wuxuuna qaaday dhowr tillaabo oo isla markaasina ku sii wato awoodihiisa haddii aan soo qaadana tusaale waxaa dhowaan xilka laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xilgaarsiinta ahaa iyaduna la magacaabay wasiiro beddelaya kaasi waxaana dikreetadii lasoo saaray isla markaasina afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu uu akhrinayo uu ku sheegayaa markii uu ra'iisul wasaaraha fiiriyey xeerka qodobkaasi sidaas yahay asigoona la tashiye sameeyey uuna ka mid yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo bal yaro dhageyso بسم الله الرحمن الرحيم مقعابس iyo isku bedelid xubno golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble markuu arkay qodobka 79aad faqradiisa 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 100aad ee xarfaha A B C ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 89aad farqadiisa 2aad xarfaha A B C ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu tixgeliyay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intaas oo kaliya maahan waxaa jirto in markii kiiska Ikraan Tahliil Farax uu soo baxay uu sameeyay ra'iisul wasaare Roble xilka qaadis isla markaasina iyo sidoo kalena wasiire uu magacaabay balse maxamed cabdulaahi farmaajona uu asigana sameeyey in uu magacaabo taliyaha nise iyo sidoo kalena diidmo uu diiday wasiire uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble khilaaf ka dhex dhashay
balse markii dambe la sheegay inay heshiiyeen ayaa waxaa meel martay in farmaajo magacaabistii uu yaasiin farey u magacaabay nisa uu siyaasi kusii shaqeeyo, sidoo kalena uu jirto in fahad yaasiin xil uu u magacaaban uu kusii shaqeeyo, sidoo kalena warqadaha safaaradaha uu ka guddoomayo maxamed cabdulaahi farmaajo qeyb ay ka tahay inay u meel martay wasiir uu diidanayna sidaasi xilka loogu qaada isbedel lagu sameeyey. taasi ayaa waxay u muuqataa in ay tahay mid wixii laga diidayay uu kusii tilaabayo. marka kalena dhanka laga fiiriyana iminka maanta wuxuu ka qayb galay shir, islamarkaasina oo tahay mid ay kasoo qayb galayaan madaxda maalgashiga Afrika, islamarkaasina uu kusii shaqeynayo. waxaana sidoo kale muuqato garaangal uu weli ku leeyahay doorashada, balse taasi macnaheedu ma ka dhigi kartaa in maxamed cabdulaahi farmaajo wixii 2 sano go-aankii laga diidanaa oo dad ay ku dhinteen, dirir ay ku dhacday, si dadban oo holihiisa u wato, ayna tahay doorashadan agajiid lagu sii dhameynayo waqtiga oo muddo kordhintii oo meel martay? fadlan aragtidaada nagula jawaab qaybta hoose commentiga. mahadsanid. tan iyo mar kalena intaan kulmi doonana waa anigoo ah Mustafa Maxamed Cali, alabana kala soo hadla halkan Ethiopia Media oo idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.